أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها الأحبة قال تعالى في محكم تنزيله يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أيها الأحبة إلهي سبحانه وتعالى وحو كتابك سكت المامية reer nebi aadama oo haddii ay idin yimaadaan rusul xaggayga ka socota oo idinka mid ah oo idinka warramaan aayaadkayga baa ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala faman ittaqaa wa aslaxa falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun kuwii ilaahay ka cabsada ee qaata waxay rusushu la timi oo wa aslax suubanaado hagaagsanaado acmaashiisa fiicnaysiiya falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun tiiraanyo iyo baqatoona korkooda ma ahaanin baa ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala insaanka mashkilada ugu badan ee dunida ku qabsada waxaa ka mid ah alkhawf waalxusn ilaahayna subxaanahu wa tacaala aayaad 14 gaadhaya buu ku tilmaamayaa waxyaabaha khawfka iyo xusniga bini aadamka ka kaxeeya waxay culimmadu yidhaahdaan isu imaatinka bini aadamka iyo maamuladooda taariikhda bashariga bay yidhahdaan waa macdala waa dhibaatooyinka ugu waaweyn ee taariikhda bini aadamka soo mara fi kulli zaman wa makaan waqti kasta iyo meel kastaba waayo aadanuhu qumanidu waxay ku jirtaa ilaahay kitaabkiisa markuu ka tago laba mid unbuu maraa bay leeyihin ima طغyaan aw alfawda laa amna wala istiqraar deganaanshiyo iyo nabadgelya ma dhacda bini aadamku haddii aanu raacin ilaahay kitaabkiisa labada gebi midunbuu ka dhacaa mid ah fawda dadku inaanay yeelanin kala dambayn oo fawda ay noqoto fawdaduna dil iyo dhac iyo boob ayay sababtaa aw طغyaan ama dictatorship oo isna dhanka kale ah kuwa kibray oo qooqay inay dadka maamulaan oo dabeetana dadku xorriyadooda iyo karaamadooda iyo dadnimadooda waayo oo iyana baqa iyo cabsi kale ku abuurta waxay culimmadu yidhahdaan labada dhanba
hadday fawdo tahayna waa baqa iyo cabsi iyo cadamu listiqraar deganaanshiye la'aan hadday dictatorshipka iyo tughyaanka noqotona iyaduna waa cabsi iyo deganaanshiye la'aan idan bulsho ama ummadi waxay heshaa al-amni nafsi walijtimaaci naf ahaan iyo bulsho ahaanba waxay nabad noqotaa wuxuu qofkiisu nabadda dareemaa qof waliba marka uu raaco ilaahay subxaanahu wa tacaala ariiqiisaasi deganaanshiyaha iyo nabaddu waxay culimmadu ku tilmaamaan inuu yahay sulamu taqadumi walxadaara horumarka bini aadamka iyo xadaaradiisa sallaanka loo fuulo inuu yahay alidiraab walkhawfna dadkoo degi waayo xasilooni la waayo nabad iyo amni la waayaana waa ariiqu takhalluf waa jidka dib u dhaca ee noolaha uu maro ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inoogu tilmaamayaa ugu horeyn nabad iyo amniga in ilaahay kitaabkiisa laga helo faman ittaqaa wa aslax falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun faman tabica hudaaya falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun ina aladiina qaaluu rabbuna allahu huma istaqaamuu فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون حوالي 14 آية با إلهي وحكوت المامية هدي كتاب كيسا لغوق مناضه هدي دين تيسا للراعه هدي الرسوشي سالا الرمايه هدي جدك إلهي وددك وسودك للراعه هدي هانونك أنيقا يقيم الراعدان با إلهي لي فلا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون وياه بقى كركي ناهان مايو مروغنا كركي ناهان مايس بل إلهي سبحانه وتعالى نبدي أمن قسي آدنه فائدة وقليين جندي سمركو كور رمي وحكوت المامين يتهي دارت النبت قليده وآفات كالدوني دا كردو عردن إن لقاقين نبت قليه لهم دار السلام عند ربهم با إلهي كت المامية دار نبضات بي ألاكتي سكوليه إلهي وحكو تلماما يا وحدتك وغيري إن دارتا نبضتها والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم بل إلهي إسلام نمضب وحكو تلماما ودد النبض إنيتي سادردد با إلهي وحليه قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام جدك النبض إلهي كهنونية عدي الراعد كتاب كيسه ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم أمنوا أيها الأحبة ونعمة كو وحلقوها إلى إلهي كتاب كيسه للراعه هذا يددك الدين تألا سق من الراعان كو وحيها لأن اطمئنان قلبية أمن نفسية نفهم بيودقان نفتو دا حصيشة ورورية تيران يمرقكم الدعضو meeshuu u socdaa buu garanaya xagga rabbi inuu ku socdo xaggu ka yimuu og yahay meesha dunidu ku dambaynayso garanaya ilaahay in la iswada hortaagayo garanaya saa ogeed baa ilaahay wuxuu leeyahay wa'ada allahu alladhina aamanu minkum wa 'amilu s-salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina ilaahay wuxuu inoo tilmaamaya alla wuxuu idiin yaboohay kuwa iimaan laga helay idin ka mid ah alladhina aamanu minkum wa 'amilu s-salihat إيمان عمل صالح عدي لجهله إلهي وحب بلن قاضي لا يستخلفنهم في الأرض دولكا إلهي خلافة دي سيدين دي بيا دولكو يدن دحلسين سيدي كو يدن كيدن كو ريبا لو دحلسيي ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم دين تو دبا إلهي سبحانه وتعالى مكان سين دونا أو تقوى لك الرئيسان نقن دونتا ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا بقهود الدبديدنا إلهي سبحانه وتعالى نبدبو بدلي دونا شرطك ويعبدونني لا يشركون بي شيئا وأدونك مركا لتشوغو إلهي وحلي نبد أدون بان دون كسينيا آيات كان وحي كورمينا الدنيا آخرنا وهم من فزع يومئذ آمنون بإلهي لي آخرنا ويبدباديان وفزع ينبت كتشرته labada goorba badbaaday leeyihiin baa ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala nabaddu iyo deganaanshiyaha siyaasadeed waa gaaya
وإسلامك اعتباريا لذاته إنه غايات كلا الرادعين يكمدي هاي سيدا وجد بقرآن كآيات بدني وحي كنت الماميان قفكو إنه النبض دين تيسوه له إنه النبض هلا نفتيسه إنه النبض هلا مال كيسه إنه النبض هلا عرض جيسية نسل جيسية شرفت ديس الضرورات الخمسة ضي علماء كور رمان ومسألة إنه قفكو النبض انت سيردنوه لكره سو ربي سبحانه وتعالى كالي وعابده وحانا إلهي القرآن كآيات بدن كنت المامية وها الشرائع دا لو سودة جيبا إنه يتهي نبض دائن لهله نبض دائن لهله أي إلهي سبحانه وتعالى شرعي وسودة جي نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام وحط المامية أدون كينا وحبابا كام مغنين هدا تصدح شيء سلها شو وحادنوه الرادية أدونك وصدح ذنب النبي قلت المامية من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها نبي حلي عليه الصلاة والسلام نكوابرسته إسقى معافا آمنا في سربه كوحدي سامه الكيسامة بلشدي سكون نبض قبا وأنا عندنا كبغينين نبض قبا معافا في جسده جدهان وعافمات قبا عنده قوت يوم ما انتاوح عننا هيسته نك صدح داسي سوق كلانتو إنه تلقي يدك يسلة جوجا كنا بتغبه وأنا قحنتين بيل درن كوا هين أما كويس كنا بدواين يا وكنا بتغبه دت كيس يسقى له جوجا آمن في سربي وحكلوا له يدي شركي سنا وعافمات قبه وأمراض يوحسيانا هينين وحكلوا النبي وقلت المامي ما انتاوح عننا هيسته أدونك وين لا عنون كما بطو صدق هذا الشيء كما بطو أدونك واحد بني آدم كرادية سو قد من نبي وحكت المام يا كاسي الدنيا دا قصة أو ررتي الدون دمانتي بكاوها يا أبو نبي قلت المام يا إلهي سبحانه وتعالى مركو قلت شيئا يا قريش إلهي وحلي فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ها عابدان ربي بيت الحرام كله إيه قاتشنا كقوديي بقنا كنبت قليي هدبا أيها الأحبة أمني قاسي قرآنك وكور رمي نبت قليا داسي أسباب إيا مقومات بيلين هدو ضد كل مادنا وصقم أيوه وشيريو هدو ضد كل يوم وينان لهليني إلا بدأ فوضى مدون ودعيه إما إنه فوضى الدكتاتور كأودعه وعدكو أمركو تاغليسات تنتصد عالم الإسلامي وبدن يهي أما إنه حق فوضى ودعه سيدا قيبا بدن عالم الإسلامي كتر سنايهين والله بدأ الطرف والله بدأ عدم الأمنية لبدأ بخوف يا عدم استقرار يالله نبد يد جناشية لبدأ بانو مدنا أولين سوقت با إلهي وحط المامية كو واحد جناشية كان والإيمان بالله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون إلهي وحكت المام يكون نبض هيستا النفتو دا آني ورور دينات قبن هانون سنة جتك صحن قاضي وكو إلهي الربي سبحانه وتعالى جتكيس هيا هذا إنه إسلام نمدين نربو قاضنه وحين هلينا أمن نفسية نفهانين إنه حصلونا إنه وحين هلينا أمن صحية قضائية نقال هانين إنه دقنا إنه حصلانه وحين هلينا أمن أخلاقية وحين هلينا أمن فكرية وحين هلينا بني آدم كون نبض ووبا هي دمان تيدو مالك استبقشة عرضكاقية مالكاقية نفتادية دينكاقو بوا نبت قليان أما هدينو جدك ألا كوي عنه وقادي وينه لبض الطرف كلامدو بينو كدعينا أما طرف كاف فوضى دينو تاقنانينا أما طرف كاسي
dictator ka baynu taagnaanaynaa labadanna bini aadamku inta badan wuu kala tallaabaa mar hadduu xaqa garan waayo ama fawdu ku dhacayo wuu dawakhaa markuu hadhow wareerana wuxuu aqbalaa mid dictator inuu qabsado wuxuu idhaha war tan wax waliba waa dhaamaane aan marun ka baxno ka kale markuu qabsaday nafta isugu keenana waxay idhahdaan kan wax waliba waa dhaamaane aan ku boobno marka labada dhan mid unbuu taagan yahay se labadaba waxaa lagaga badbaadaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala tiisa la raaco saa awgeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ina farayaa inaynu ilaahay diintiisa qaadanno kow oo iimaan laynaga hela iimaankaa asal u ah nabadde laba inaynu yeello alamru bilmacruufi wannahyi cani lmunkar xumahana iska reebno xuma iska reebku waxa weeyaan wixii masaalixa ummaddu aanay ku jirin adduunya aakhira toona in dadka laga celiyo wixii dadka adduunkoodii iyo aakhiradooduba ay ugu jirtana in dadka la faro saa awgeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu xadiidka saxiixa ku tilmaamayaa intuu seexdo kacay buu wuxuu nebigu leeyahay laa ilaaha ila allah waylun lilcarab min sharin qad ikhtarab carab halaag baa u sugnaaday balaayaa soo dhowaatay buu nebigu tilmaamay yaajuuj iyo wamaajuuj baa meeshoodii wax laga dumiyey markaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam in mashaakil iman iyo fitan iyo imtixaan buu tilmaamay haweenkii nebiga mid ka mid ah waxay ku tidhi afa nuhlaku wa fiina asaalixuun oo miyaana halaagayaa miyaanu halaagsamaynaa iyadoo dadka saalixiinta ay nagu jiraan dad wanaagsan iyadoo joogaan miyaan halaagsamaynaa qaala nacam idaa kahura alkhabath buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam haa hadday inta xumi badato hadday bulshadu inta xun qaban weydo oo sii dayso dabcan waa halaagsamaysaan baa ilaahay leeyahy subxaanahu wa tacaala nebiguna calayhi salaatu wasalaam kaas buu adkaynaya maanta waxaa badan kahra alghawaa'iyiina waalmughafiliin dadka xumaha ugu yeedhaya dadka xumaha ugu yeedhaya mushkiladda waxaad ka eegtaayoo keliya social mediahan bini aadamku ay dhegaystaan ama dadku dhegaysto social media waxa laga soo afuufayo bale soomaalidu waa dad dhibtooda ay ka gedisantahay dadka kale social media haddaad eegto dadka ugu badan ee la dhegaystaa waa intan waalan uma dadkeeda waala dhegaysataa ma jirto ha soomaali ahayni dad waalan oo lagu odhanayo wuu waalan yahay ayaa haddana wuxuu yahay dadka loogu dhegaysi badan yahe la dhegaysanayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamayaa amni haddaynu rabno inaynu ilaahay raacno kow inaynu caqiido saliima qabsanno xejisanno laba inaynu alamru bilmacruufi wannahyu cani lmunkar samayno saddex inaynu nimcadaynu haysanno markaasi ku shukri noqno waitaadana rabbukum lain shakartum laaziidannakum walain kafartum ina cadaabii lashadiid wadaraba allahu maala qaryatan kanat aaminatan muطma'ina yaأtiiha risquhaa ragadan min kuli makan fakafarat biancumi illah ilaahay wuxuu tusaale inoogu tilmaamay magaalo nabad qabtay oo deganayd oo arsaaqdeedu meel kasta uga imanaysay laakiin ilaahay nimcadiisii ku kufriday faadaaqa allahu libaas aljuuci waalkhawf oo ilaahay subxaanahu wa tacaala dhadhan siiyey huga cabsida iyo gaajada hugooda rabbi dhadhan siiyey walaqad jaaءahum rasuulu minhum fakadabuuhu faakhadahum alcadaabu wahum ظaalimuun ayuha alaxiba waxaa ka mid ah waxyaabo badan oo sharcigu inoo tilmaamay oo haddaynu ilaahay diintiisaasi si dhaba u qaadanno oo waxay sheegaysa yeello waa sida qura aynu nabad ku heli karno baryo galbeetoona nabad ma soo wadaan jaar iyo kuwa kaa fogitoona kuuma soo wadaan dunida ayna soo gaadhiyo duni ku soo gaadhayso adiga ku danaynaysaa ma jiro adna ma tihid ilmo caruura oo wasiyo u baahan iyo cid gacanta qabata carruurtaa la yidhaahdaa caqligooda kuma fille sharcigu wuxuu yidhi cidi ha ka mas-uul noqoto ma carruur baynuna cidi ka mas-uul tahay markaa oo umamka caalamka iyo dunidaynu u yeedhaynaa haddaynan qaan gaadhaynin waa lagu gumaysanayaa lagaa mas-uul noqon maayo ilaahay ha loo toobad keeno oo dembi dhaafa la weydiisto
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين قال تعالى في محكم تنزيله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا أيها الأحبة waxyaabaha ilaahay qur-aankiisa uu ku tilmaamayo ee deganaanshiyuhu ku yimaado waxaa ka mid ah istiqraarka siyaasiga ah ummadi inay kala dambayso yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu llaha wa atiicu rasuula wa uli lamri minkum war inta iimaanka laga helayow alle iyo rasuulkiiba ateeca inta talada idin haysana ateeca bini aadamka tale looma dhiibo haddii aanu taaco yeelanaynin maamul aan taaco lahaynina dunida kama jiro dowladaha reer galbeed waxyaabahay ku guulaysteen waxaa ka mid a waxay aqbaleen maamul kastoo ay samaystaan inay taaco ula yimaadaan hadduu yahay ku dowladeed hadduu yahay ku shirkadeed hadduu yahay ku ka hooseeya hal meela unbay gafeen oo maamulkeeda u diideen inuu madax yeesho meeshaasna way ka burbureen galbeedka meesha qura aan maamul lahayn waa guriga islaantii odaygu waa sibayin midna ka kale ma maamulo guriguna wuu baaba'ay waayo maamul baanu lahayn kala dambayn ma leh nolosha inta kale way garteen inay kala dambayn u yeelaan taasee uma yeelin ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa nolosha oo dham inay kala dambayn yeelato hadday madaxdu qaldanto ama waddada la hayaa aanay sax noqonin ilaahay wuxuu leeyay fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ila allahi waalrasuul war haddaad murantaanoo wax isku qabataanna isdila lama odhanin ee ilaahay iyo rasuulkiisu waxay idin sheegayaan usoo noqdaa la yidhi kaasi ha noqdo waxa idin kala saara haddaa alle iyo rasuul rumaysantihin idan wuxuu nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam axaadiis tiro badan in waliyul amrigu ama cidda wax maamushaa inay taaco leedahay waxaa kaloo uu tilmaamayaa ammaana inay tahay isna uu ka soo baxo waxaa kaloo nabigu tilmaamayaa cid aan ammaanadaa qaadi karinna inaan loo dhiibin soomaalidu waxay caan ku tahay kay adhiga kala quusataabay geela u dirataa bay idhaahdaan reerku kuu ka quustaabaa xagga maamulka loo diraa waxaana la doonayaa in la guulaysto mid aanad adba waxaaga u dhiibteen baad leedahay waxa ummadda ha loo dhiibo caaqilka iyo suldaanka iyo odaygu kuwaanu isagu xoolihiisa gaarkaa ku aamineen uu yidhaaho ummadda ilaahay waxay leedao dhan ha lagu aamino waa dulmi kale suurtagalna maaha inay dhacdo bal isagoo daacada oo cibaado badan ayuu hadduu karti daran yahay aan loo dhiibayn ama haddaanu maamulka aqoon nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisii rag ka mid ah oo uu ku tilmaamayay inuu ninka ugu hadal cad uu yahay abidar ayuu nabigu ku yidhi adigu daciif baa tahay iska daa maamulka laa ta'muranna cala اثnayn laba ha u talinin buu nabigu yidhi mid ka badan daaye laba qof idan haddii la waayo ummaddu cidday dooranaysa hadday noqon weydo ciddii ku qumanayd iyana waa cadamu listiqraar deganaanshiyaha waa la waayaya waxaa kaloo deganaanshiyaha la waayayaa cidda maamulka haysaa hadday cadaaladda ka tagto xukunka cadaaladiisa dhaqaalaha cadaaladiisa alcadaala fi tawsiic ummadda inay si siman wax u siiso haddii maalin baynu idhaahno waa maalintayadii oo la yidhaha maalinba reer ha boobo dabeetana reerkaasi gar iyo gardarraba uu difaaca ugu jiro ninkaasi inuu meesha fadhiyo waayo waa xilladoodii mar bay rabaan iyaguna inay meesha boobaan hadday taa tahayna guulaysan mayno istiqraarna jiri maayo laakiin wuxuu istiqraar jirayaa إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
waxa ilaahay nagu waaninaya haddaynu aqballo. akhiiran waxaan ku gebagabaynayaa muqawamaadka waaweyn waxaa ka mid ah inta wax qorta ee iclaamka ku jirtaana inay ilaahay ka baqato. iclaamku waa waxyaabaha ummadaha roga, beentan badan ee la faafinayo, warkan aan la hubin ee la akhrinayo, waa waxa dadka dabagediya. iclaamka hal tusaalaan kaasi wuxuu samayn karo. nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam wa amiinu man fi الsamaawaati wa fi اlardiya الصaadiq الamiin gaalnimadii ama martaan diintu ku soo degin lagu yaqaanay inuu الصaadiq الamiin yahay qabla اlbicثa iyo intii waxyigu ku soo degay baa caan ku ahaa, ayaa qurayshi waxay ku tashatay inay war ka faafiyaan. warkay ka faafinayeen waa maxay? waa inuu nin waalan yahay. dadka kii u caqli badnaa ee ilaahayba doortay ee bashar oo dhan inta rabbi eegay allahu aclamu xaysu yajcalu risaalata uu dad oo dhan ka doortay ee haddana tahire qalbigiisa jeexaya nadiifiyey ee haddana waxyi ku soo dejiyey ee jidka quman ilaahay u tilmaamay ku tilmaamay basharka ka u khayr badan inuu yahay ayaa miidiyuhu wuxuu go'aansaday in dadka loo sheego inuu waalan yahay. dabeetana dacaayadaasay faafiyeen. saxaabi damaam la yidhaahdaa wuxuu leeyahay magaaladan soo galay dabeetana sidii warka laygu waday hareeraha dadka magaalada maka kaga imanayaan baa loo sheegaa nin waalan baa magaalada jooga oo dadka sixre ah iyo ku dawakina iska ilaali haddaad u tagto annagaa tolkiyo oge. magaaladan soo galay buu say warkii igu wadeen ayaan sidhi buu markii dambe sidhi buu war malaa ninkani wuu xanuunsanayaaye bal ma isku daydaa inaad dawayso. nabi maxamed buu yimi wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam ilaahay rasuulkiisii ayuu wuxuu ku leeyahay war waxoogaa baan dadka ku tufaa madaxa looga jire ma kugu tufaa waxoogaa. yani wuxuu rumaysan yahay inuu waalan yahay oo u baahan yahay in wax lagu tufo. dabeetana nabigu calayhi salaatu wasalaam markaas buu la hadlay. markaa kadib buu ogaaday de inaanu ninkaa waxaan ku hadlayaa nin waalanahayn oo islaamay. waxaan uga dan leeyahay haddii nebi maxamed loo inta dad u shiro la odhan karo wuu waalayo dad laga dhaadhicin karo, inteena kalena inaynu waalanay waa laynaga dhaadhicin karaa. iclaamku markaa imaa inuu mufsid yahay oo dadka fasahaadiyo iyo inuu khayr ka shaqaynayo oo alamru bilmacruufi wanahyi can ilmunkar uu khayr sheegayo. waxa aan soo sheegay oo dhan iyo kuwo kaleba qur-aanku in badan buu ka warramaya, wuxuu ku tilmaamayaa inay yihiin muqawamaat اlamn wاlistiqraar, waxyaabaha keensada in nabad iyo deganaanshiya la helo. haddaynu muqawamaadka diidnana inaynu ilaahay kitaabkiisa raacno isku xukunno nabad heli mayno. waxaynu helaynaa waa labada dhan un inaynu kala dooranno kolba kaynu ku dhacayno. labada dhan un inaynu kala dooranno, saacadna inaynu fawdada joogno iyo isdilka iyo boobka iyo dhaca, saacadna inaynu joogno maxay mid dictator ah oo markaa dadka tumo oo dhib u geysta. labadaa daraf un baynu abi taagnaanaynaa, doorashadeennuna labadaas un bay joogtaa. waxaa qura aynu qumanaan karnaa haddaynu aqballo ilaahay kitaabkiisa inaynu raacno. haddaynu taa aqballo, dad badan oo dadkeenna ka mida aaminsan haddaynu kitaabka raacno waa lumaynaa. haddaynu kitaabka raacno gaalada ayna maagaysaa. armaaba la guulaysan waayaa, shakaa ku jira. dee kitaab waraar maynu guulaysan weynaa. idan markaa hadday taasi timaadana dee iimaankeenna dib loogu noqonayaa. mar caqiidadeennu sax ma tahay iyo waxaynu rumaysannahay taas baa imanaysa. haddaynu wixii alla inoo soo dejiyey wahuwa alkhabiiru alcaliim axkamu alxaakimiina oo aan suu aqoontiisa wax la mida ilaahay aanu jirin, khibraddiisa wax la mida aanay jirin, naxariistiisa wax la mida aanay jirin, xikmaddiisa wax la mida aanay jirin. haddaynu isaga ku kalsoonaan weyno ma waxaynu ku kalsoonaanaynaa afar qof oo intaynu meel u saarra aynu idhaahno waa khubaradii galbeedka ka timi oo waxbay inoo qorayaan iyagaa in hanuuninaya. bini aadamka u fiirso, rabu الsamaawaat ayaa waxaad ka dooranaysaa guddi bini aadama meel la fadhiisiyo la yidhi wax qora mahmaa kaanuu. wadaad iyo wamin waxay doonaan ha noqdaan, oday iyo suldaan iyo kuu doonaya ha noqdo. war ma bini aadam baad ilaahay dhinac dhigaysa aad ka shakisan tahay ka bini aadamku inuu ka fiican yahay ka rabbiga.
ربنا وحكولي ور كتابا كوسو دجي الراع رسول هذا يدين تمادو وآيات كيغا يدين شيغان فمن اتقى واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وأقم الصلاة